kala doorashada oo la tartamaya sanduuqa ayaa codka lagu ridaya ololaha lagu kala bixi maayo qaybada lagu kala bixi maayo caydana lagu kala bixi maayo waxaa lagu kala baxayaa warqadda la calaamadeeyo ee sanduuqa lagu rido sababta baadii farxad weyn bay tahay maanta inaan ka soo qayb galo farxadda iyo hambalyada ardayda ka qalin jebinaysa koolajka ama dugsiga British ee magaalada Ceergaabo waxaan aad u bogaadinayaa waalidiintii ardayda halka soo gaarsiiyey juhdiga iyo dadaalka badan soo geliyey waxaan aad u hambalyaynayaa ardayda maanta aynu farxaddooda u joogno waxaan si gaara oo kaliya laaba aan u hambalyaynayaa oo jecel inay istaagaan saddexda hablood ee farsamada gacanta bartay ee ka mid ah ardayda maanta qalin jebinaya maasha allah hablaha kalena tusaale iyo guul bay u tahay waxay muujinaysaa habluhu inay shaqo walba qaban karaan oo ay wax kastoo raggu qabtaan ay qaban karaan fariista ayaa baa idinku hambalyaynaya waxaan rajaynayaa dufcadda afraad ee halkan ka baxdana in hablo kale oo intan ka badani inay iyaguna iman doonaan sida laga sheegay hablahaas waxay barteen elektriga ama farsamada laydhka waa shaqo aad u adag laydhku waa laga baqaa waa lagu gubtaa laakiin geesnimo iyo dhiirigelin bay sameeyeen haddii ay joogaan shirkadaha laydhka ee magaalada Ceergaabona waxaan ka codsan lahaa war saddex ilan intaa eridaan saddexdaa hablood shaqo siiya sababtu ku tahay shaqo adag bay galeen waayo dowladdu shaqada ay haysaa waa shaqada serviceka ama adeega weli ma jirto wasaarad farsamada gacanta ka shaqaysa ama ma jirto dugsi in la soo saaro ardayda mooyaane dib loogu celiya sidaa awgeed farsamadii gacanta waxaa gacanta ku haya shirkadaha brefordka waxaan rajaynayaa hablo kale oo dhismaha barta oo barta qaybaha kala duwan ee xirfadaha in la sameeyo koolejkana waxaan ka codsanayaa inaad sanadka dambe ku soo dartaan xirfadaha barashada badda iyo kalluunka oo aynu iyagana aad ugu baahannahay xeeb dheer baynu haysanaa gobolkeenna bad weyn buu leeyahay xirfad iyo aqoon buu u baahan yahay taana ku dara waxaan koolejka ku bogaadinayaa dadaalka uu sameeyey halka uu soo gaadhay iyo halka uu socdo inaad maraysaan heeraa hantiilayaal noqotaan oo dhul asadow koolejkuba ay samaysaan in hamigiinu yahay inaad dhistaan waxay muujinaysaa inaan koolejkani ahayn koolej macaashdoona oo dadka wax ka doonaya laakiin uu yahay mid magaalada Ceergaabo inuu waxgeliyo oo dadkeeda waxbaro doonaya waxaan kaloo ku dhiirigeliyaa degmooyinka kale gobolka Garadag iyo Ceelafweyn iyo Mayl dhammaantoodna inaad gaarsiisaan si ay gobolka Sanaag uga soo baxaan arday aqoonta xirfadaha iyo aqoonta cilmiga maadiga iyo diinigaba dhisan waxaan idin sheegayaa soo jeedintii halkan ay ka soo jeediyeen ee dhismaha gudoomiyaha gobolka oo xukuumadda gobolka kaga wakiila ka hadlay ka xukuumad ahaan diyaar baan u nahay wixii aanu kaga qayb qaadanayno iyo wixii aanu ku kordhinaynaba sida gudoomiye gobolka uu sheegay waa la soo marinayaa annaguna diyaar baan u nahay oo sidaanu kala shaqaynaynaa farxad bayna noo tahay inaan wax ku darno waxaan dadka reer Ceergaabo aan doonaya halkan uga sheego sidii balasaabku sheegay quruxdan howlkan ay joogno ardayda wax baranaysa intuba nabadgelyada ayay ku yimaadeen saaga kulligeenii nabad baynu ka helnay alxamdulilah maantana qaybeynu ku noqonay rajeenayna hooyooyinka oo had iyo jeer iyo hablow nabadaada uga shaqeeya waxaa leeyahay dhallinyarada iyo dadka kalena idinkuna la gargaara oo la gacan qabta taasaana nolosheenu ku jirta arrimaha kala doorashada oo la tartamaya sanduuqa ayaa codka lagu ridaya ololaha lagu kala bixi maayo qaybada lagu kala bixi maayo caydana lagu kala bixi maayo waxaa lagu kala baxayaa warqadda la calaamadeeyo ee sanduuqa lagu rido warqaddaas waxay ka dhaxaysaa qofka qalinka warqadda loo dhiibay ilaahay subxaana wa tacaala oo korka eegaya waa qarsoodi xor baa tahay qofkaad doontaad u odaynaysaa wuxuuba mar haddii warqaddaa tahay sababaad u qayliso oo dhib kale u geysato xisbiyada iyo ururada siyaasadaba dhammaantood arrintaa waan uga digaya waxaana ku dardaarayaa ololibaa furmaya 19 bisha cid waliba ciddii taageersani xafiisyadeeda iyo goobaheeda si nabadgelyo ah u tagto maalinta codkana qof waliba qofkuu rabo u odaynaya laakiin reer Ceergaabo waxaan u sheegayaa 2010kii wixii ka horreeyey xukuumadihii kala dambeeyey xisbiga kulmiye koolejyano maynu lahayn barefadkii maxamed mustaare iyo axmed kiisa waa wax kalaynu nahay yaa
محمد بستاني أحمد كيسون بابرين فضلوها dhalinyarada halka joogta ama mararkaasi dhalatay ama aad u yaray maanta ceerkaagu jaamacaday leedahay koobajay leedahay quruxdaasay leedahay waxa sababay oo keenay wadada dheer ee burca ka timaada ee laamiga ceergaaba timaada reer kasta oo biil fiican haysta iyagoo ceergaabo waxbarasho ka waayay hargeysay burcay ugu jeediye berbera maantana reer weyne ku magaalayo wixii ay rabeen maanta loo keenay waxa keenay waa wadada la dhisay waa horumarka la qabtay waa xukuumadii kala dambeeyay xisbiga kulmiye maantana waxay leedahay farsamadii gacanta waxqabadka iyo horumarka gobolka laga qabtay dhaxalkiisii waxa qaatay waa shacabka reer Ceergaabo cidda ka faa'iideystay waa reer Ceergaabo waxay dhaqan u leenahay oo gobolnimadeena ku jirta abaalka cid marka abaal la galo abaalkii la celiyo abaalkaasi hanti maaha hawlgaloo la isu diray maaha waa warqadda la calaamadinayo xisbiga kulmiye iyo musharaxa madaxweyne Musabbix Cabdillah reer Ceergaabo iyo reer Sanaag reer Somalilandba abaalkaa gashteen bay ka doonayaan dhalinyarada ubaxa ee quruxda leh ee gurigoodii jaamacaddii koolajka weynaya waa kuwa koowaad